gobolka Sool waa gobol ka tirsan Puntland oo qaybo ka mid ah si xoog ah ay u haystaan dad aan Soomaalinimada ogolayn oo raba inay Soomaalinimadii ka baxaan. dowladda Puntland waxay diyaar u tahay dadkeeda inay ka difaacdo xadgudub kasta, ilaaliso sharaftooda, dhowrto xuquuqdooda madaniga ah, ilaaliso sidii ay ugu noolaan lahaayeen nolol karaamo leh. waxay maanta talada adiga ku xigeenka uga dhan weerar qaado Soomaaliya aad bay arrintaa u dhageysanaysaa oo ay maqlaysaa. waxaan se kaga ciilaahay mar hadday Soomaaliya ciidankeeda shacabka diyaar dalkooda inay daafacaan, haddii aad ka joogi weydo nabadda diido waxaad ka ashadada soo socon karaan. arrinta danay iyo weerarka uu cilaamiyey inay xamar dowladda joogtaa lama yidhaahdo iyuu soo furtay waxa uu daliila maanta golisa shacabka intuu fariistay ayuu guddi u soo saaray arrinta Soomaaliland. taasi waxay markhaati ka tahay in dowladda xamar ka dhisay maanta ay ka bareeday in Soomaaliland ay weerar ku qaado. waxa ku kordhiyay waxa istawrisada diyaar baruna shantiina madaxweynaha ku shaqeeya xamar haddaad filan Soomaaliland weerar oo ka maanta oo ka qaadi karaa waa isranahay diyaar oo noona shacabka Soomaaliland taas uu sheegay.